maxaan carali gobtiyo uradii dhaqankiyo fadkay maxaan ku calosamaay Sumaya qurux waxaan leeyahay welcome to Hargeysa kusoo dhaw Hargeysa cidi ka xigto walal macaan Hargeysa waa la wada leeyahay Soomaaliya oo dhammaale tani waa soo dhaweynta Sumaya qurux waxaa garabkeeda taagan Shuusho Cabdalla waxaa lagu soo dhaweynayaa magaalada Hargeysa halkaasi oo qaar badan oo kamid ah bulshada iyo dhalanta caanka ka magaalada Muqdisho ay dhawaan u tageen safar magaalada Hargeysa haddaba waxaynu eegi doonaa shacabka Somaliland ayaa nacab walaalahooda mise ogtahay sababta loo xiray Sumaya qurux hadda xabsi ay ku jirtaa mise waa la soo daayay mise mas'uuliyiinta uu biixi ugu horeeya ayaa nacab mise ogtahay ninka bixiyay kooda Luulyo inay tahay maalin u madowray Somaliland ama kooda July inay Somaliland ku tahay maalintii hooga kooda July waxay noqotay maalintii madowgeed ee shacabka reer Somaliland xornimadoodii ay baabaaday ay gacan ay hoos galeen maamul iyo awood juhala ina caari waraabo halkaasi noogu qaba soo 1960kii maysan ahayn markii ay Soomaali midowday ku soco Mrs. Wall ayaa dhawaan lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa shacabka Somaliland maxay ka qabaan soo dhaweynta bulshada dhigooda ee Soomaaliya magaalada Muqdisho ku nool ayagana balcadeen yar hal qof oo kamid ah reer Somaliland aynu isla daawan Sumaya qurux waxaan leeyahay welcome to Hargeysa kusoo dhaw Hargeysa cidi ka xigto walal macaan Hargeysa waa la wada leeyahay Soomaaliya oo dhammaale welcome baan ku leeyahay gabadhaasi waa mid kamid ah gabdhaha isticmaala baraha bulshada ee ku nool magaalada Hargeysa sidaasi ayay ugu qalbi xaaran tahay bulshada walaalahooda ee Muqdisho ku nool waxayna tiri ku soo dhaw oo Hargeysa ma kala leeyahin yaa waya cida caburisa shacabka Somaliland balilada oo muuqaalkan oo qeexaya cida caburinaysa dhibaatadana ku hayso shacabka reer Somaliland xawlaan jaalweyn oo magaalada waan iska jeclaynaa aad ma doonayeen aadiniyo mashaqli meesh hadda ka booday ma doonayeen aad ma yaano hadda ma santi kullada ku bilaabay magacayga walaal waxa Israad Yuusuf Xasan way Israado ma jeclaan leeyahay Muqdisho hadi ha walaal waan jeclaan lahaa walaal ma tageen baan waan ya meel ii xigto ma aqaabaan tan jecelahay waan soo joogaa aan leeyahay Muqdisho hadi Muqdisho waan ogolayn tago way caasimadida way maxaa kamid waxyaabaha ku dooratay Muqdisho la saanood baan mooday wala sheegay Muqdisho ha way Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed way bal maxaa kamid sababaha ku dooratay warniyoon Muqdisho ma tigeen laakiin Muqdisho ha wala aad iyo aad oo jecel Muqdisho maxaa kamid sababaha ku doortay waa iska jecel waxa dhacay oo dalkayga hooyaan jooga meesha waa baro qowlka ragaan joogan waa macquul muuqaalkan markaad horey u daawateen dareenkaaga u taabtay waxaan kugu cadeynayaa muuqaalkan in uu xaqiiqo cad u yahay in shacabka Somaliland lagu hayo guumeysi uga imaanaya ina Cali Waraabe Muuse Biixi iyo mas'uuliyiinta ugu soo sareysa ee Hargeysa ka talsha dhanka kale saxaafadda ayay ku hayaan cunuqabateen taasi la mid ah iyadana waxaad ila daawataa clipkan kooban ee saxaafaddu ay kaga caawinayso xukuumadan dhibka badan intan waxay muujinaysaa in saxaafadda la caburinayo in loo caga jugleynayo inaan fursad loo siinayn madax banaanida saxaafadda arrintan waxay noola muuqataa in la leeyahay carjuuq dhaha daawadayaal waxaynu wada ognahay in adduunka maanta uu ku dhaqmo dimuqraadiyadda casriga ah haddaba dimuqraadiyaddaasi Somaliland ayaa kamid ah dunida dalalka iyo wadamada iyo magaalooyinka looga dhaqmo bal magaalada Somaliland aynu iyadana fiirina dimuqraadiyadda ay ku dhaqanto anigu ka shakhsiyan fikir ahaanteeda Somaliland ma ahan mid looga dhaqmo dimuqraadiyadda casriga ah dimuqraadiyaddaasi oo looga dhaqmo dunida horumartay iyo sidoo kale qaaradaha Afrika walow aysan ahayn mid si taam ah uga dhaqan gashay qaaradaha Afrika haddaba ku soo dhawaada dimuqraadiyadda cusub ee Somaliland waxa ay tahay 1991 waxaa laga cawdaa xukuumadaha Somaliland ay sheegaan in la caburiyay qaar ka mid ah bulshadii xilligaasi jirtay walibana Allah u raxmadee mudane Siyaad Barre uu ciqaabay
balse si walba shacabka dunida dulmi way kala galaan waana la iscafiyaa khaladna waa kii hore usoo dhici jiray weligii xitaa waagii rasuulka si walba oo ay noqoto shacabka Somaliland raalli ma ka yihiin waxa uu ku dhaqmayo keligii taliya Muuse Biixi Cabdi oo iminka ka ah madaxweyne gobolka Somaliland ee Soomaaliya ka tirsan madaxweyne Muuse Biixi waa keligii taliye dadkii maanta dhaawacmay waxaan leeyahay Ilaahay caafimaad ha siiyo caddeyn yar oo kooban in shacabka Somaliland aysan raalli marnaba ka ahayn hogaaminta Biixi bal muuqaalkan kooban gaaban boqolaalkan reer Somaliland ay isugu soo baxay si ay isaga dulqaadaan keligii taliya Biixi ugu dambeyn muuqaalkeena waxaan idin leeyahay Sumay Qurux oo xabsi 2 saacadood kaga jirtay Hargeysa ayaa ugu dambeyn dib u heshay xorriyadeeda arrinka qadiyada Somaliland waxaan leeyahay shacabka Somaliland ma necba dalka Soomaaliya iyo walaalahooda reer Muqdisho iyo gobolada kaleba ee hajoojiyana fidnada kuwa ugu horeeyo Faysal Waraabe Muuse Biixi iyo xukuumadaha kalitalisnimada iyo cuqdada 91 wixii dhacay ee ka buuxda inay iska daayaan oo ay iloobaan lana midoobaan mar labaad walaalahooda Soomaaliya la caburinayo in loo caga Sumay Qurux waxaan waan qabaa kooda July inay Somaliland ku tahay maalintii hooga kooda July waxay noqotay maalintii madoobeed